Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Barnaamijkeenani wuxuu noqon doonaa keenii ugu dambeeyay taxanaheennii caalamka akhriska. Waxaynu xusi doonaa 3 qodob oo qofka gayeysiin kara siduu u noqon lahaa akhrista wanaagsan oo micnaha ama aynu nidhaahno mudnaanta akhriska fahamsan. Dabcan waa talooyin kooban oo si guud u iftiiminaya hababka loo hanto ee loo kasbado akhriska. Marka aad ku jirtid xulashada buugga aad rabtid, waa inaad ku xisaabtantaa luqadda uu ku qoran yahay buuggaasi. Waxaa muhiim ah inaynu isku dhiirigelinno in aynu ballaadhino afafka aynu wax ku akhriyi karno, haddana inta aynu naqaano innaga oo kala mudnaanta siinayna. Tusaale ahaan, dhiganayaasha diinta ku saabsan, waxaa daruuri ah inaad afka Carbeed ku akhridid si fahamku kuugu soo dhowaado. Sidoo kale, buugta ku saabsan sayniska, sirdoonka, kasmonafeedka, falsafadda iyo badi aragtiyaha casriga ah laga qoray, waxaad u baahan tahay inaad ku akhridid luqadda Ingiriisiga si akhrisku kuugu soo dhowaado, fahamkeedana uu kuugu soo dhowaado. Ereyada ama termiska la adeegsaday inaad u fahamtid. Marka aynu buugta kala qaadno, midi waa mid aad tixraac ahaan u adeegsanaysid baadhid aad wadid tusaale ahaan, midna waa mid aanad waqti xaadirkan tixraac u adeegsanaynin. Waxaad arkaysaa dad marka ay buug akhriyayaan qaamuus weyn isa soo agdhigaya, marna buuggii eegaya, marna ereygii ku istaaga dictionary-ga gelinaya. Qofkaasi waa ruux laba buug akhriyaya oo aan isdhaadsanayn. Caqligani waxa uu awood u leeyahay inuu isagu maamulo oo kala hufo ereyada xidhiidhka la leh aragtida uu qoraagu u socday iyo kuwa godadka lagu buuxiyey. Balse haddii aad adigu diiradda saartid sidaad ereyada u fahmi lahayd oo aad kelmad buuggii u wadid, waxaad faa'iiday micnayaasha ereyadaas, oo Ilaahay mahadii waxa kordhay xaddiga kelmadaha ee aad haysid. Balse dhibici kaagama ay gororin fikraddii ka dambeysay buuggan aad akhriyaysid. Marka aad sidaa u soo qaadatid buug ay tahay inaad akhridid, waa inaad u qabataa muddo cayiman, isna weydiisaa dhiganahan intee leeg ayaan kaga faraxalan karayaa. Tirada kuu soo baxda ka dhabe oo yayna kula dhaafin hal buug iyo muddo qeexan. Bal u fiirso, 2 buug oo midi kugu yahay amaah, halka ka kalena aad adigu leedahay. Waxaad hordhamaynaysaa kan kugu amaahda ah, sababtoo ah waxaad ku xisaabtamaysaa waqtigii uu kuu qabtay qofkii lahaa amba maktabaddii. Sida dhacda marar badan ayaa aad daal maskaxeed iyo caajisnimo ka dareentaa jadwalkii wax akhris ee kuu qorshaysnaa. Adiga oo ka cagajiidaya ayaa aad is aragtaa, balse waxaad kaga bixi kartaa adiga oo go'aan qaata, iskuna taxallujiya sidii aad diiradda u saari lahayd akhriskaaga. Codadka muusikada iyo wax kasta oo fursad siinaya in qulub soo kala dhex galo adiga iyo buuggaaga aad akhriyayso waa inaad meesha ka saartaa, waana inaad doonataa deegaan bilaa sanqadh ah. Agabyada uu taleefankaagu ka mid yahay ee mashquulka kugu keenaya iyo wax kasta oo carqaladaynaya waqtigaas aad akhriska ugu tala gashay waa inaad ka saartaa meesha oo aad ka takhalustaa. Adiga, buugga iyo bii'aduna aad iskaliyeysataan. Marka aad wax akhriyaysid, qalinka iyo xaashidu waa in aanay ka ag fogaan. Marka aad u baahatidna waa inaad qorataa meelaha daruuriga kula muuqda. Tani waa mid ka mid ah fursadaha kaa kaalmayn kara inaanad ilaawin waxa aad akhriday.